warka dani calool adeeg baa lagugu yaqaanaa lafta gareerow ha cabsan wixii hadda ka dambeeyo qorqoorow soo istaag xasan sheekh maxamuudow daa sheekada farada badan diblomaasi looma baahno diblomaasi badan kuwa waraag adduunka lagu waraagaya looma baahno ummadaada kici meel kasta midda kaloon idiin sheegi maalinka lagu soo duula soomaali ani kenyaan baan ahay wiilka gaaris joogo haddii lagu soo duula soomaaliya 500 kul wiil baa intimaanoo diyaar inay ku dhintaan anaa idiin sheegi dhegaysta calool adeegka soomaalida waddankii waa lagu soo duulay waxaan u imaannay annagoo idinla joogno waxaan ognahay oo fara badan baa jiraa ee waxaa la yeelayaa soomaaliya isku tashada meeshaad moodaysaan wax idinma jirto in laydan tirtiraa la rabo waxaa lidin quuri laayahay nimcadan baa lidin quuri laayahay khayraadka waddankiinna ku jira adduunka meelay ku jirta ma laha baddaad haysataan meelay adduunka kasta maxay ku dhacday inuusan mudaaharaad ka dhacaynin waxaan amar ka ahayn soomaaliya oo dhanbo maxay ku dhacday inuusan ka dhacaynin ilma adeeryaalo waddanka badbaadiya ilaahay haddaad taqaanaan ani waan sii duqoogahayaa wakhtigana wuu sii socdaa hadduu dhibiniga dhanka kenya oo nin kastana iyo gabar kastana maxay ahayd mansabkeeda aad baan ugu farxasanahay inuu isbeddel fiican ka dhacay oo doorashadii wakhtigeeda aad ku qabatay nabad iyo maxay ahayd horumarna hadda laysu diyaarinhayo wakhti badan isuma heli doono waayo nin kasta mashquul buu noqonayaa anigana waxaad iga barateen markaan hadlayo waxaalaha yaryaroo aad adag inaan ka ku hadlo maanta waxaa loogu talagalay meeshan waxaa weeyaan waa celebration basically waan wixii aan soo marnay maanta waa xaflad laakiin waxaan idiin sheegayaa fursaddan maanta madaxda soomaaliyeed oo inta isugu imaatay aanan aaminsanahay diaspora iyo regionka iyo waddanka sida maanta laysku imaaday inaan hadda ka hor ayn dhicin waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan waxyar idiin sheego khayr waxba kaama dhiba laakiin shar u toghay gobolka keliya oo jamiiradda soomaali ka mid ah oo maanta xor ah waxaa weeyaan puntland gobollada kale oo dhanba mise xoogag ciidamo ajnabi ayaa dhextii joogaa ama al-shabaab oo nimankan khawaariijta ayaa ku dhex jiraan aad baan ugu faraxsannahay xilkeedoo gooni oo khaas ahna wuu jiraa adiga iyo gobolkan puntland ayay waajib weyn ka saaran yahay sharafta soomaaliyeed inaad qayb weyn ka qaataan sidii loo soo celin lahaa yaan la fududaysanin waxyaabaha ka dhacaya adduunka hadda wakhti horaa waxaan sheegay aniga soomaali in la doonayo in gebigeedaba la laqo oo laga farabato oo dalkan iyaga ka suulaan oo qowmad kale maaragtay qowmiyad kale lagu beero waan fogaysanay berigii oo suurtagal ma ahan dhahnay laakiin wixii aan sheegaynay hadda cabsideeda way bilaabatay haddaad ogtihiin haddiidan ogeen maraykanka intuu hadda yahay meeluhu u badan yahay waa waddan mase xoog lagu qabsaday oo mexico laga qaatay iyo isbaaniyoolka laga qaatay ka horraysay markii calibaysteenka laga qaadanayay laakiin markan dambe bar waa la gatay louisiana waa la gatay alaska waa la gatay panama canal waad garanaysaan taariikhdiisa guantanamo bay waxay ku taallaa waddanka la yidhaahdo cuba dadkii waddankaa lahaana xaq uma laha maanta oo xoog baa lagu haystaa markii hore oo ay gacantooda ka baxaysayna agreement yar oo hadda midda la sheegaya oo kale ay gacantooda uga baxday soomaaliya ay taariikh badan waxay soo martay baa jirtaa aad ha loo xisaabtamo hana laysu imaado madaxda gobollada siiba maxay ahayd gobolkan iyo gobollada kale central governmentka dadkii hore xilka soo wada qabto hadda meeshan wada joogo dhibkaas ha laga hortaga wax badan baan ogahay aniga oonan la ogeyn idinka
وحبلن بانوغاي waxaan ogahay hadda ka hor in la keenay hindisa la leeyahay Soomaaliya labaha loo qaybiyo qaybna hal raaciyo Kenya qaybna hal raaciyo Ethiopia oo waliba ay diyaar u ahayeen agree all those things were basically were the niceties of diplomacy but the reality of the matter is wadanka in la wareega la rabaa meeshana waxa iga muuqata fudeed baa iga muuqda mujtamaca guud in la kiciyo ciidamada maxay xal degdeg la geliyo hawada laga xiro dhageysta waxbaan ni sheegay ciidamada ajnabiga oo nagu jiraan oo wadanka ka imaadeen la iska saaro haddaad go'aanada adag Soomaaliyeed qaadan weydo meel aan laga gaari karin ba hadhow loo dooni doonaa lafta gareen khair Allah si wuxuu yiri aniga la haystaanahay wadi maqlaysan Soomaa uma baahni biir jaajuus in la ii soo dir albaabka la ii fadhiya wadankaada ni sheegtay baa ciidankiisii wadanka hadda uu ku dhax jira kuma jiri karo waa in la yiraahdo waa inay ka baxaan haddaad go'aano adag qaadan weydaan qorqorow lafta gareenow daniyow war heedaha war waxaan anaga aragnay idinkana idin muuqatay ilaahay daa taqaanaan war may maqashaan war daniyow khayr Allah ku siyaadi kali waa xor arrintan ay toobartamaheeda hal la fariisto nin baninku ka maqnaa haddii waraabo u imaado oo soo gala cid horta cid way heshiisaa markii waraabaha la iska fiijiyo ayaa haddana dib damba loo xisaabtamaa wadankii waa lagu soo duulay waxaan u imaanay annagoo idin la joogno waxaan ognahay oo fara badan baa jira waxaa la yeelayaa Soomaaliya isku tashada meeshaad moodaysaan wax idinma jirto in la yidhaan tirtiraa la rabo waxaa lidin quuri laayahay nimcadan baa lidin quuri laayahay khayraadka wadankiina ku jira adduunka meel ay ku jirto malaha baddaad haysataan meel adduunka laga haysta ma jirto qabiilka aad tihiin oo halkoo qabiil oo Soomaali la yiraahdo cid qabta malaha waxaad yeelaysaan anigu waana iga tahay maanta fursad bay ii tahay inaan la hadlo waan igu soo noqoni ilaa meel kale si kale oo noo banaan ma jirto midda kale aan idin sheegi maalinka lagu soo duula Soomaali ani Kenyaan baanahay wiilka gaaris joogo haddii lagu soo duula Soomaaliya 500 kul wiil baa intimaano diyaar inay ku dhintaan ana idin sheegay dhageysta caloladeeg Soomaalida la diga rabaa dani caloladeeg baa lagu yaqaanaa lafta gareeno waxa cabsan wixii hadda ka dambeeyo qorqoro soo istaag Xasan Sheekh Maxamuud oo daasha kala farada badan diblomaasi looma baahno diblomaasi badan kuwa waraag adduunka lagu waraagayo looma baahno uma baahda kici meel kasta maxay ku dhacday inuusan mudaaharaad ka dhaceen waxaan xamar ka ahayn Soomaaliya oo dhanbo maxay ku dhacday inuusan ka dhaceen ilma adeeryaalo wadanka badbaadiye ilaahay hadda taqaanaan ani waan sii duqoobayaa waqtigana wuu sii socdaa hadduu dhibiniga dhanka Kenyana anoo jooga Kenya ayaan baarlamaanka intaan shirnay baan ku niri looma dhawaan kara territorial integrity Soomaaliya war aniga ajnabiga habaan ka cabsanaynaa maxaad ka cabsanaysaan idinka war maxaad ka cabsanaysaan warkaca hal la badbaadiyo dalka waa loo soo jeestay khayr Allah idin siiyo walaalayaal khayr Allah idin siiyo garab baan idin nahay annagana